أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صناقة وعان أصحابتا وانت هنشرح يا عذرك الدومada fadlan hadii aad ku cusubtahay channelka Saliika subscribe saar gabalka furo like na sii saar asxaabtan hadu share gareysay oo walba macluumaadka ay u gaaraan waxaan ka hadlaynaa inta badan Soomaalidu waxay ku dhacaan cudurka duumada ama loo yaqaan malaariyada cudurka malaariyada waa cudur ku dhaca unugyada dhiigga cas ee loo yaqaan red blood cellska ama loo soo gaafka Englishka RBC wuxuuna aad ugu badan yahay meelaha biyaha ay fariistaan sida waraha webiyada meelaha ama dharka lagu dhaqo guriga oo kale ay cudurkaas ku badan yahay taasoo ay ka dhanayso kaasanaacada maxaa sababa marka cudurka ku ajinta maxaa cudurkan duumada waxaa sababa protozoa oo kaasoo markaasi keena in ama ka dhashato markaasi cudurka inta badan malaariyada waxaa loo kala qaadaa ilaa 4 qaybood oo ah Plasmodium falciparum oo loo soo gaabiyo BF-ta oo inta badan ugu badan tahay Soomaalida dalalka Afrikada iyo Plasmodium malariada iyo Plasmodium vivax iyo Plasmodium ovale calaamadaha qofka lagu arko malaariyada waxaa kamid ah markuu in qofka lagu arko qandho zaid sare ah in jirkiisa ka soo muuqato xadkii lagu targalay digriga 37 degree centigrade oo ka bata xadkiisa u dhaafo in lagu arko qofka madax xanuun zaid ah iyo lagu arko qofkii muruq inuu xanuun uu dareemo iyo dhaxantii galabtii qofkii inay isku soo wajahdo daal aad u fara badan iyo qoor xanuun oo kala qofkii inuu maanta qoortii oo jimcsado oo qoortii cays kaga dareemo iyo waxa la arkaa qof markaas afkiis qaraar noqon intuusan qaadan karin ay inta badan ugu badan markaas qofkii inuu ku dhaco calaamada laga soo muuqan karo daawooyinka maxaa la siin karaa marka daawooyinka malaariyada ay tiro badan yihiin marka drug dose ahaanteedii waxa qofka siin kartaa artemether injection 80 mg qofkaasina waxa siin kartaa ama 120 marbisi ku maan kartaa 6 waxa siin 6 baa siinaysa maalinta ugu horeysa waxa siinaysa 2 cirbad isku duray si uu noqdo markaasi gramku duu yahay mid 6 ama 8 duu yahay laba ugu markuu horeysa waxa siinaysa markaas 2 xabad duray inta kale waxa u dhigaysa markaas hal u dhigaysa hadii uu jir markaas xanuun baabiyo waxa siina paracetamol si ciyaarka kale waxa siisaa biocomin syrup si markaas biocomin syrup taasi sida laba horeysa waxa siina laba qaada ka siina syrup oo tahay inta kale waxa siina hal siina hadii xanuun uu jir paracetamol si multivitamin syrup ay ugu dar hadii xanuunkiisa uu yahay paracetamolka asaasiina ama nuujina ugu bedeli kartaa by injection ama waxa siin kartaa iyadoo ay tahay markaas iyadoo kiniini ah waa siin kartaa halkaas waxaynu eeg cudurka duumada fadlan subscribe to star asxaabtan u sii share garee. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.